waxaa maanta si rasmi ah xadhigga looga jaray ama albaabada loogu furay maxjarkii saddexaad ee ay ganacsato reer Somaliland oo xoolaha dhoofisa ka hirgeliyeen magaalada Berbera. maxjarkan ayaa markabkiisii ugu horeeyay toddobaadkan horaantiisii laga raray xoolo gaadhaya 20,000 oo neef kuwaas oo loo iibgeeyay dalka Saudi Arabia isla markaana sifo sharci ah oo caafimaadkooda la saxay ay halkaasi uga degay. waxaana ugu horeyn maxjarkan cusub ee lagu soo kordhiyay maxjaradii hore Berbera uga jiray ka warbixiyay mid kamid ah ganacsatada maxjarkaasi ku midowday isla markaana xoolaha ka dhoofisa. maxjarkani waa maxjar ganacsiga xoolaha Somaliland wax badan ka taraya kuna soo biiray maxjar hore oo ka dhisnaa mandaqada. alxamdulillah ilaahay baa suura geliyay sababteedana waxa lahaa dad ganacsato ah oo reer Somaliland oo xoolaha dhoofiya. alxamdulillah maxjarku wuxuu socday muddo sanad iyo bada dhismihiisu iyo nidaamkiisa sharci haday xaq dhismatay haday xaq sharci tahayba. alxamdulillah wuu soo gabagaboobay wuxuu hadda u diyaar garoobay inuu qabto hawlihii loogu tala galay iyada oo markabkii koowaad shixnadii koowaad ay ka baxday usbuucan horaantiisii ay degtay shixnadii labaadna ay dhoofi doonto insha Allah oo jimcaha. waxaanu dhammaan ganacsatada reer Somaliland u sheegaynaa inuu diyaar u yahay adeeg kasta oo caafimaad oo loo qabto xoolaha. waxaan u sheegaynaa inaanu keeni doono suuqyo cusub oo aan hore u jiri jirin dalka iyo dawlado cusub oo xoolaheena gaarsiin doono annagoo haysiin doona hilibka iyo tayada xoolaha reer Somaliland. waxa ka hawlgala dhakhaatiir badan oo konton ku dhow waxa ka hawlgala shaqaale 300 oo qof ah. waa hawl u soo korodhay iyo nasiib u yeesheen ummadda reer Somaliland. waxaanu halkan uga mahad celinaynaa maxjaradii hore ee nala soo shaqayn jireen la shaqayn jirnay xoolaha ganacsiga Somaliland horena waanu wada shaqayn jirnay maantana xiriir dhow baanu yeelan doonaa. sidoo kale waxa isaguna halka ka hadlay gudoomiyaha ganacsatada maxjarkaasi ku midoobay iyagoona u ballan qaaday guud ahaan ganacsatada xoolaha dhoofisa ee reer Somaliland inay si hagar la'aan ula shaqayn doonaan isla markaana uu noqon doono maxjarkani mid shahaadadiisa caafimaad ee dhinaca xooluhu ay tahay mid caalami ah oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay. marka hore ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'ala. ilaahay isku keenay halkan inoona suura geliyay maanta inaynu halkan ka hadallo. allah mahad leh subxaanahu wa ta'ala. mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahda saxaafadda iyo tijaartan ganacsatada ay halkan fadhida oo alxamdulillah oo ilaahay suura geliyay maanta inaynu maxjarkii aynu muddada sanadkii barka ah soo wadnay aynu ku guuleyn. runtii waxa dhameeyay Cabdiraxmaan ilaahay ka abaal mariyo hadal wixii la oran lahaa buu yiri. waxaan ku darayaa bacd Allah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa inay hawshaasi suura gasho maanta xukuumadda Somaliland ee hormuudka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo sidoo kale wasiirada dawladda Somaliland khaasatan wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhammaan howlwadeennada xanaanada xoolaha. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka iyo degmada Berbera oo si wanaagsan oo qiimo leh noola shaqeeyay. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa maanta oo aan ugu bogaadinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maxjarkaas inuu usbuucan markabkii koowaad ka degay Sacuudiga inagoo ku jirna xilligii muusimka ee xoolaha la dhoofin jiray. runtii waxaan oran karaa halkan maanta waxaan maxjarkan aanu iskugu nimi farxad oo idinkuna nala wadaagaysaan reer Somaliland oo dhan kanala joogiyo kanala maqanba. farxadaas oo ah ganacsatada reer Somaliland oo maxjar ku midowday inay samayso ilaahayna u hirgeliyay dabadeedna alxamdulillah ilaahay ku guuleeyay inay himiladay doonayeen amba ujeedaday lahaayeen
qaybo ka mid ay gaadheen. tusaale ahaana waxay ahayd ujeeddadu in maxshar la sameeyo, maxsharkaasina ay ka baxaan xoolo caafimaad qabaa, xoolaha caafimaadka qabaana dalalka suuqyada jira aynu geyno, dabadeedna la rogo. taasna sida ragga hore u sheegay waa lagu guulaystay, markabkii ugu horreeyay baa degay. waxaan anigu si gaara ugu mahadnaqayaa oon runtii raggii hore hadalkii hore dhameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siiraayo oo runtii waqtiguu dibadda jooguu ahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye geed hoostii ku ballan qaaday inuu korinayo ganacsiga reer somalilan amba uu korinayo waxaa la yidhaha free marketka, suuqa xorta ah. maxjarkan maanta xadhigga laga jaray ayaa wiigan horraantiisii xoolo gaadhaya 20 kun oo neef laga raray, islamarkaana laga dhoofiyey dekeda magaalada berbera, iyagoo xoolahaasi ka degay dekeda weyn ee caalamiga ah ee dalka sacuudiga gaar ahaan jidda. waxaana la sheegay in xoolahaasi sifihii caadiga ahaa ee xoolaha loo rogi jiray loo rogay, islamarkaana la qaatay caafimaadintooda. cabdilaahi soo fadhiistay Somali Cable TV magaalada berbera.